غزوة يرموك صدحنين أو أصحاب النبي محمد كمدا أيا داو حالسا لغو سو غاري marka kii horeeyay la gaaray wuxuu leeyahay biyo igu qabta cikrimoha markii biyihii la yiri hal lagu qabto hal la siiyo ayuu wuxuu maqlay mid kale oo ka shisheeyo le biyo markaas anigu aan roonahay isaga la gaaray biyaha kiiba la dulimid kiina wuxuu maqlay ku kale le biyo marka anigu aan roonahay ka kale la gaaray saddexdoodii iyadoo ninna biyihii ka ban oo ninba ninka kale u doorbiday uu leeyahay isaga la gaaray أي سدح ذي نفته كوضع على مركلية أنا هندنتو ولا الكي حن ولا هذا مسلمين دول ما أنت محي مريان أنا هن ولا هذا لا وش كدمو وقف كمسلم كلام ولا الكي مسلم كهذا واحترين شركة قوم مدة كهيس على كل مسلم صدقة waagu markuu baryo buu rasuulku yidhi qofka muslimka sadaqa laga rabaa inuu dhiibo in lam yajid buu hadduu haysana fayacmalu biyadihi gacantiisuu shaqo ku abuuri buu nebigu yidhi fayanfac nafsahu naftiisana waxbuu tari wayatasadaqu walaalkiisana muslimkana uu sadaqadaysan uu siin markaasuu in lam yacmal hadduu samayn sidaana markaasuu nebigu yidhi yuciinu dalxaajati almalhuuf qofka dhibaataysan ee loo itaal sheegtay ama qofka kurbadu ay haysatay madluumka ayuu xoogiisa ku caawino uu gurman oo wuxuu leeyahay warninka waa laga gardaray gardarada ka daaya oo dulmiga naga daaya hadduna sidaas sameyn baa nabiga laga yidhi wuxuu nabigu yidhi ya'muru bil khayr dadku wanaaga fari hadduna sidaas sameeyna sharkiisu ummadda ka haysan oo meel kala fadhiisan inta baa qofka muuminka sadaqa ugu filan buu rasuulku yidhi war muslimka waxaa la doonayaa ummadda inaad wax tarto ood cilmigaaga wax ku tarto oo dhaqaalahaaga wax ku tarto oo caqligaaga wax ku tarto oo xooggaaga wax ku tarto oo hadalkaaga wax ku tarto haddaa intaa midna lagaa waayey sharka adiga ilaahay kugu abuuray dee ummadda meel kala fadhiiso oo axaadiista isfardhig sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun buu nebigu yidhi qofka muslimka cayda la caayo faasiqnimo ayaa lagu mutaystaa dilkiisana waaba lagu gaaloobaa buu rasuulku yidhi markaa dadka muslimiinta walaal waa walaalo ilaahay baa walaalo ka dhigay waa inaad naftaada ha u noolaan waxaad tidhaahdaa anigu walaalkay baan u noolahay waxaan hayana walaalkay baan u hayaa wixii fiicanna anay igu fiican yihiin wixii xunna aday kugu xun yihiin war waxaasi nolol maaha nolosha islaamku waa maxay walaalayaal waa inaad garataa muslimka walaalkaaya shahaadanaya yaa وقعن أذيك كام غنيتو كام غنيه المؤمن للمؤمن كالبنيان ساسو نبي يشد بعضه بعضا كم ريك قال كوجود بيس جوجا مسلم كدباتيسن قال كان جوجا للربعين وكم مرقود ودعي حد عيننا ما أنت تي في قاعد فريو وحلي واحد لمن يدم عليه ومسلم فرقاس مسلمين تي قارقود جاد بالرابسنة يا جاد عنتو وينظر وحو أركيا مسلمين تو بعضه ولا بابي حتى إنه داونا ما هي إنه مرقوده هي حالة مسلمين تو وين لقى مرقود دبعتنا مسلمين تو هاي ستنيك عن كم مرقين كم إنها أبو رسول بعد يسكوي هذا متى وحكو ترين فعل كاغا دعاء وحكو ترى هذا الدعاء لقى وينا شركاغا ومدى كهش وددك مسلمين تو حالة دونا يا inay muslimiintu isku damqadaan asaas kugu duubnaadaan caamada iyo culimada inay isku xidhnaato dhalinyarada iyo odayadu inay isku xidhnaadaan oo dadka muslimiintu ay noqdaan inama almu'minuuna ikhwa ummad buu nebigu diyaariyey ummad ninka la odhan jiray qays ibnu mataatiya alkhasraji miskiinkii nebigeenu soo galay alayhi salaam waa khasraji halkaa waxaa fadhida ansaar أوس خزرج مهاجرين حلقات وحدود تجي بلال يا سلمان يا عمار يا فديان مرقاس كوا هديت ولا محل وقبح هاي كوا نينكو تركي بو هلاي معاذ بن جبل بانيكي هالكا قبط محاتري وان كفتم ان هذا كان هو هلاي
markaasuu mucaad halkaa isagoo hayuu nebiga ninkii u geeyey sal alay slam markaasaa rasuulka wejigiisii bedilmay masaajidkuu soo galay mambarkuu fuulay saxaabadii oo dhan baa loo wada yeedhay khudbad buu nebigu bilaabo khudbad dheer maahayna khudbad gaaban bay ahayd wuxuu yidhi waryaada rabbigiinnu waa mid keliya buu yidhi diintiinnuna waa mid keliya carabiyadduna aabba iyo hooyeynima buu ka yidhi faman tacallamaha ninka luqada carabiyadda ku hadalkayga bartay waa carabi intaa markuu nebigu yidhi buu khudbaddii ka dhaadhacay mucaad binu jabal weli ninkii halkii buu hayaa kana nebi allow maxaad odhan buu ka yidhi kaa naarta u daa buu yidhi naartaa kaaga filan naarta u daa buu ka yidhi maalintii abubakar la doortay khilaafada loo doortay qabaa'ilkii ridoobay isagoo murtada ninkii la soo dilay waa kelmaddaa wuxuu diinta kaga baxay kelmad ummadda casabiyad iyo qabyaalad ku abuuraysa ayuu ku dhex tuuray masjidkii rasuulkeenna wuxuu yidhi kuwa maxaa looga baahan yahay haddeetol waa bilaal alxabashi salmaan alfarisi suhayb alruumi radia allahu canhum raggii diinta islaamka asaaska u ahaa ayuu ku leeyahay kuwa maxaa looga baahan yahay ninku tolkii buu helay haddeetole kelmadda uu yidhi baa ilaahay ninka raxmaddii kala noqday mar labaad oo diinta ilahay u ka qaatay isagoo murtadana la soo dilay